حاجة maanta dadku waxay naga wadaagayaan buuq siyaasi ah jira waxaan leeyahay Soomaaliland maanta intii odayaasha ay ganacsatada ay dalka wax ku lahayd ka dhaxaysan way joogtaa haddayna doorashooyin qaban waqti ugu suurtaga gashan taladeedu way gudbisaa waa dhab istiitii kale waxaan u baahanahay doorashooyinka waa dhahay waxay u dhahay waa tabardarraanteena siyaasadeed marka hore oo dee coddarasa wax kala bardiyiin xisbiyadu waa ordi siyaasadoodu waa ordi qolada xisbiyada inteeda hogaamisa dee dadku ma ka mid nahdo ilaa meel sawada kabanaa soo dhicine talada ceecinaysa ilka bilowda ah ayaan la hadlayn waxaa ordina sharciyadeedii oo imka dhismaya oo iyagina dee baahidu iyo gudoomadoodii markaa duruufahaas sidaa warshadaheeda u daaheen ee leylkeeda u jabilayahay ee warshadii sawirkaa dhisan kale laanahay ee wadooyinkeeda wuxuu yihiin ayay siyaasadeedna uliya tahay u gaabinaysaa waxaan leeyahay maanta aynu siina marka hore inaynu siyaasadda jiro oonu isugu tagno oonu doorashooyinku soo qabsanaya inagoo wada jira oo dhinac walba ka eegnay oon isku haaraamin oona cidna cid ku maagin aynu u qabsanahay labada hore iyo gunaha maxay ahayd dowladaha hoose iyagu xoog ma fadhiyaan mana diidana in la bedelo waayo xeerkaas aasa waana rag iyo magaranaya mas-uuliyadda oo dee xilkiiba jooga hal qodob aynu mahadinay laakiin badan baa jira waxaynu ku darsanay dastuurkeeda oo leeyahay waa marka quran talada saxa helay golada doortay waa bedeli kara dadka imika aad u qaliya dhibsanaya golo 15 sano maraya guurtoo soddon maraysa kuwii kaloo 3 ku socda waxay la degi lahayd dowladda Soomaaliya qodobkaasay lahayd golo bedel ha gaadho waayo raadideedu waa dhibaato laakiin waxay dhaantaa fowdada iyo isdhexyaaca la waacida ma xalaalaynayo inay doohaan golayaasha u dahay tabardarrada keentay waxaa waa maanta waxaa la saaraamayo dee xoogaan baan oo cid walba ragga golayaasha jooga inay diyaar u yihiin in la bedelo laakiin waa sifa sharci lagu dalayahay caysuuqa iyo xaaramadii eed xaq ma laha waa problem sharcigu waa qabta wakaa gudoomiyihii baarlamaanka aroorta wixii iyo sharcigu dhahda lagu kabo oo diyaar anaa haba waan saxaabi ka guurtada waa xaawi laakiin waxa weeye dee waa in wixii laga dhinac dhammayna oo nacad ku dhamma doorashada 3 qodob hortaagan ka ugu muhiimsan waa dhaqaalaha waxaan leeyahay Soomaaliya hadday doorashada dhaqaalaheeda bixin weydo oo cid kale ka bixiso warigeed soo amayso nin taladiisa ka bixiso qof taladiisa cid u maamusha hadee meel ma gaadho waa inuu bixin karaa wax badan maaha dowlad ganacsato dadka ka shaqeeya hawsha yareeya inagoo warka doorashada inaanay ahayn kursi doonaya tahay nolosheeda iyo maamulkeeda markaynu isugu tagno waraynu qabsan karnaa oo siriyada khilaafaad waa wax laga ka warreeya waa dhaqaalaha ay noo taagan كمشي كلمة كتابة هو مثلا بسيط وواحد حقيقة وأنت بس كمان هاي بقول بسيط هاي ضدكم مركز أو حسكم قطع الله ما هو بيقولش مسح يا حاجة هذه حاجة المسألة سعود الشرع الله ما هو وجد ولا شرع نور ويا حاجة مسح ويا الله ما هو منكر لكن يرقبها سليمان يا والد والله يرقبها تصاحب وكراسة برنامج وفرق وإمر لقى الله هذا ينتبش يروى مسألة بسيط وما تمسألة بيانا بينو كرينا تندي مورينا تنهر موقعنا واحد قالوا وايما ويركب الهزوة سأدرت المحمية هاي سومالها ما أنت برشاة قلوبيا وإلى سموتكتا يضع إبو الصعوطة وكالعالية وتشتي إلى الدوشة قبله مدقعة وحمر الله هذا المهضم مرتبة موتبين وربط قولة آل ونفر حسن عين وأن لا يعين ودركيني كسور هذا كقلوا ميسان إثوري بالقرآن هي شارك القرآن نبضع هي وشقيتها يا روحي qodobka aan ku sii farayaa qoladan walaalahayna waxa weeye ee labada gobol federaalka dhexe
Ethiopia waxa ka socda oo keentay furfur badan waxaana ku baaqday in geeska Afrika saddex garo oo la wadaalo oo la saaro aad baan u soo dhaweynaa geeska Afrika saddex garo oo wadaalo waxaan isweydiinaynaa sidee la isku xiganayaa ee loo wadaaloobay qof walba dal walba wuxuu eegayaa dantiisa isdhexgalka iyo qabsiga wuxuu eegayaa qof walba inuu dantiisa ka dhex arko oo waxaan ilaa globalization kan maanta 20 sano Mareykanku waday dad badan baa iska dhex arki waayo oo dadkooda qabsaday maanta geeska Afrika inuu saddex garo oo wada shaqeeyo waxa uu tajiiday khilaafka Soomaalida ee joogta Soomaalida waxay isku haysaa balabta markay midoobe maxay ku midoobe waxaan ku celinayaa in badan ayna Soomaaliyeed oo jaakada inta ka deyso iyadoo iska deyso waxa qabsato waxay ku xiran tahay in caqli keento warbiskii hore laga diisay midoobe dad badan baa ka qaadaya meelaha fagaara shirkii Djibouti oo kale iyo qaarkaada waxa uu dhigaa Soomaaliland inay tahay Soomaalidi dad Soomaalida oo midba diiday oo ka caawiyay caalamka ra'yigaas uu qalday Soomaaliland qarxaan waxay tahay halkii Soomaaliya oo isku timid qof kasta oo Soomaaliya ka hadla Kenya joogay Ethiopia joogay cid aan hargeysan wada aqoon oo aan ku inta timid arrin ay leedahay ana ka qabaa markii Soomaaliya mideeyay markii la halgamayay mid walba ka Djibouti markuu halgamayay isku bilaabay ka Ethiopia markuu xuquuqda dawladda ka joogo ka Kenya ilaa dhexda ka joogo maanta dadkii ay ka dhaqankaas aan leeyahay in Soomaaliya midoobo oo walaalo oo Afrika badado laakiin Soomaaliya maanta koonfur ka taraysa aqliyadii loo walaalo ma haya Soomaaliya ku midoobo oo hal xarad Soomaaliya oo wada maraya hal kala laga taliya kaale waxa baa labadii gobol baa tahay waa caqli khaldan farmaajo talawada oo socodaan midoobo والله وسيد كل رواته حامل محافظ على قطعين محل هذا الكلام وحنا كويدين ما هو مقدس من نبض المقدس بيلقى أظن إلا ساعة الكنيسة والسلام عليكم ورحمة الله عندنا يمكننا ولا يوفق نوع من الفاعلية قلت كده تبعنا وفي نفسه دولتك يوروبيا